بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوا جنال كان وركي ugu dambeeyay sportiska wax walba ugu baahan tahay naadi kubadda cagta Brentford oo dalabkii labaad ka diiday naadi kubadda cagta Newcastle ee ku saabsan hoysa maxaa laga yiri heshiiska cusub konda oo siixay ee Barcelona sidoo kale dhaawac soo gaaray Freiburg meeqa ayuu maqnaa doonaa naadi kubadda cagta Liverpool miyay bedelkiisa doontaa wili Eze ayaa arinta hadal hayo asigoo xidig kale muhiim ka noqday naadi kubadda cagta Arsenal meeqa ayuu ka joogaa ayaa leeyahay booska kala sareenta ee naadi kubadda cagta Arsenal qiimaha ciyaartooyda ku bixisa sidoo kale wax walba ugu baahan tahay naadi Fenerbahce oo markaan xidig kale gacanta ku dhigtay Roberto Lewandowski maxaa ka cusub sidoo kale fanaanada cusub ee Chelsea oo dib ugu nutayso waayay Jose Mourinho naadiyaasha kubadda cagta Ingiriiska oo qarash gareeyay lacagtii ugu badneed ebed tan iyo 2024-2025 waa ay ka sarmarinayeen meeqa ay gaaraysaa kusoo dhawaada xaaj official hadii aad cusub tahay please subscribe nosar laagdhe muuqaalka sheen gare oo gaarsi asxaabta jecel inay maqlaan kusoo dhawaada saaxiibayaal wararkeena waxa uu dambeeyo ka tataaba doona insha Allah hooyay uu dambeeyay sportska ciyaartooyda loo dhawaaqay Freiburg xidig garabka duwaha ee naadi kubadda cagta Liverpool ayaa dhaawac halis soo gaaray asigoo maqnaa karo ayaa leeyahay inta ka dhiman xoolalka aadistiisa muddo bil September dhamaadkeeda ayaa laga yaabaa inuu soo laabtay leeyahay marka xoolalka laga soo laabtay sidoo kale halis ayaan ku gaaraysaa miyay bedelkeeda soo qaadan doontaa mise duwihii yaraa ee jooga ayaa loo amaami doonaa naadi kubadda cagta Liverpool hadii is furdaami doonto sidii naadi kubadda cagta Arsenal oo arki doona booskaas firaaq ayuu ka yahay kadib Arnold bixitaankiisii Julius Kounde oo markaan heshiis 2030 saxiixay lana soo bandhigay xidigan tayada sareeyo miyuu seasonkii hore bandhigiisii seasonkan samee karaa waa arki doonaa wax ka soo gudmaada sidoo kale Eze ku biiristiisii naadi kubadda cagta Arsenal ayaa Tottenham ka dhigtay in laba xidig muhiim ah ay suuqa ka waayeen Morgan Gibbs White oo ka tirsanaa naadi kubadda cagta Nottingham Forest iyo Eze oo Crystal Palace ka tirsanaa labadooduba ay waayeen ayaa leeyahay Eze intoo ka galay hiiska kala sareenta naadi kubadda cagta Arsenal xidiga ay soo iibsadeen Douglas Rice ayaa 105 milyan ku fadhiyo sidoo kale Nicholas Pepe 32 milyan halka Eze oo noqday xidiga saddexaad ee ugu qaalisan naadi kubadda cagta The Gunners 67.5 milyan 65 milyan Havertz ayaa ku fadhiya 63.5 milyan waxaa ku fadhiya Victor Yegers halka Aubameyang 60 milyan oo ku fadhiya leeyahay waa kay macalinka ugu fiican saaxada kubadda cagta waqtigan la taagan yahay iyo waayii hore waxaa leeyahay waxaa hogaaminaya Sir Alex Ferguson oo 38 koob haysto halka Guardiola oo asigana haysto 38 koob Ancelotti ayaa asigana 27 koob haysto halka Jose Mourinho master difaac oo 20 koob haysto halka Trapattoni oo 20 koob haysto waa kuwa dadka ugu sareeyo ee ku guuleysay koobka horyaalada kubadda cagta Ingiriiska La Liga Serie A Bundesliga ilaa iyo Turkiga sidoo kale naadi kubadda cagta Fenerbahce ayaa ku dhawaaqday heshiiska Edson Alvarez oo ka imaaday naadi kubadda cagta West Ham inkoo qaab amaah ku soo qaateen waliba option iibsasho oo ku jira leeyahay inaba caadi maan xidigaas marka waa uu dooli doonaa maanta ayaa leeyahay tijaabada caafimaadna Turkiga ayuu ku mari karaa oo arki doonaa naadi kubadda cagta PSG xidigaha joogo suuqa imise ay ka joogan ilaa 5 xidig ee ugu sareysa ay soo qaadan doona Du ayaa hogaaminaya 9 milyan loo qiimeeyay sidoo kale Usman Dembele 9 milyan Kvaratskhelia ama Kvaradona 9 milyan saddexdii weerarka min 9 milyan ayaa loo qiimeeyaa Ashraf Hakimi oo booska duwaha ka dheelay ayaa 8 milyan loo qiimeeyaa Fatina asina 8 milyan ayaa leeyahay waxaa la soo saaray 5 horyaal Yurub ugu sarsareeyso tartamada dhan ee ugu goolal badan 225 oo kaliya Mbemba ayaa hogaaminaya 30 gool ayuu dhaliyay 225 shanta horyaal ee qaaradda Yurub ugu sareyso 25 gool ka Usman Dembele 22 goolna Garcia ayaa dhaliyay Roberto Lewandowski 19 gool ayaa leeyahay Harry Kane 19 gool asina Roberto Lewandowski dhalasho wacan ayaa leeyahay wuxuu noqday 37 jir inaba caadi maan waayisi Bayern Munich ilaa Barcelona ilaa Poland Borussia Dortmund ha ka reebin
823 kulan ayuu saftay 610 gool ayuu sameeyey halka caawi oo ka ahaa 155 gool inaba caadi maahan haddana wuxuu nooba ka yahay naadiga kubadda cagta Barcelona. Chelsea ayaa soo saartay fanaanad kale cajiib ah taasoo u dhiganta waayihii Jose Mourinho fanaanad madow inaba caadi maahan marka arki doona 90 ayaa taabgelinaysa ayaa leeyahay wixii ku soo kordhan fanaanadaas iyo seasonkeeda cusub Joe Pedro Adriis oo arki doona. saddexdii BBC waxaa bedelay leeyahay Karim Benzema, Bale iyo Ronaldo waxaa leeyahay waxaa bedelay Vinicius Junior, Mbappe, Ibrahim Diaz inaba caadi maahan miyay bedeli karaan masaxa mise waa been ayaa leeyahay seasonka cusub ayaa lagu arki karaa. rasmi naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa Diouf la wareegtay xidigaas qad dhex cusub una qadoona ka imaada Lens ee dhankan iyo Faransiiska waxaa lagu heshiiyay qiimo lacageed dhan 20 milyan ilaa 5 milyan oo gunooyin ah heshiis wuxuu siixay ilaa 2030 tijaabada caafimaadna wuxuu mari doona ayaa leeyahay Britole ama isbuucan wax walba isku dhamaadeen. Diouf waa xidig ka tirsan naadiga kubadda cagta Inter Milano oo isdhisaysa markaan seasonkan wallahi waa shidin horyaalka Serie A inaba caadi maahan. xidig kooxda kubadda cagta Brentford Wiese ayaa loo soo waramayaa in dalab ka imaada naadiga kubadda cagta Newcastle ee celisay Brentford dalabkaasoo ku aadanaa ayaa la leeyahay 35 milyan oo cash iyo 5 milyan oo gunno ah 40 milyan lacag ku dhawaad ay naadiga kubadda cagta Newcastle keentay Brentford waa ay ku celisay leeyahay. naadiyaasha kubadda cagta Ingiriiska oo qarash gareeyay lacagtii ugu badneed ayaa leeyahay seasonkii la soo dhaafay 2024-2025 lacag ka badan ay qarash gareeyeen waliba saxiix oo inaba caadi ayaa dhici karo inta ka dhiman suuq kala iibsi waxaa leeyahay 2024-2025 waxay qarash gareeyeen 1.97 bilyan ayaa leeyahay inaba caadi maahan. sidoo kale saxiixii sanadkan waay sidoo kale haddana waxay qarash gareeyeen suuqa furan 2025-2026 2.26 bilyan iyo wixii lagu dari karo waa in waxba dhiman qaarna waxa waaye saasay ugu jiraan inaba caadi maahan. waxyaabahaas ayaa ugu kula suuqa kala iibsiga iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyeen waa kuwaya maxaa ka leedahay dib u bilaabashada Bundesliga habeen dambe sidoo kale Serie A inaba caadi maahan. waa ka kusoo dhawaada channelka hadduu ku cusub fadlan subscribe noo saar like dhasiin share gare waa ka mahadcelina daawashada muuqaalkan waxaan iga taagi doonaa tan iyo muuqaal kale inta ku kulmeeno sidaas iyo amaana Allah bye bye.